سلطان إبراهيم سلطان عمر سلطان يوسف سلطان أبو بكر سلطان بسن سلطان عكاش سلطان عبدول سلطان قوسار سلطان حسنو سلطان هدافو سلطان حاجي محمد سلطان علي بيري سلطان مدفر meeshaas ka soo jeednaa wax oo hadda la awaabulayo la caleema saaray ma aha alxamdulillah marka halkan baaq waxa aga dira hadoo alla idmo dhalinyarada beelweynta Kaboole meel allaala meeshay joogaan dal iyo dibid qaasatan dhalinyarada ku nool Shabeellaha Hoose ma iska warhayaan 5 degmo meeshaas naga jirto waxa ugu horeeya degmada Afgooye degmada Janaale degmada Qoryooley degmada Kuntuwaari Gaaywarow 5 degmo meeshaas ku taboyna farxaane degmada Qoryooley la ka tirsantaa iyadana marka waxa raba dhalinyaradaas inay dadkooda la soo xiriiraan waliba jubbooyinkana dadaas sii jiro aniga waxaa ka soo jeednaa iyadoo saldanadii saas tahay sheekhi weynay sheekhi Soomaaliyeed oo diinka dhinaciisa ka faafiyay aw sheekh Nuur Xuseen ilmihiisa yaa joogo awlaadiisa yaa joogto oo Soomaaliya oo dhan ku midaysan tahay oo guurkiisa alxamdulillah meelo wax ka guursan dhif iyo qaliil waaye sheekhaasa ka soo jeednaa ilaa jubbooyinka waa jirnaa marka barnaamijkan waxa u qabtay oo baaqan u dira dhalinyarada war iska ma hayso inay dhalinyarada isku xiranto gacanta isqabsato dadna hadee midoobaan wax qabsi karaan laakiin haddii nin walba meel ku kala dhintaalan yahay cid wax qabsi karta ma leh marka waxa idin baaq idin ku soo dira idin ku soo jeediha guddi iyo gudoomiye sameesta waxa idin la hadlay ugaaskiina guud waay ugaaski beesha Kaboole waa ugaas Ibraahim Cumar Yuusuf qof walba macnaha si oo xiriirkiina oo u fududaado meel allaala meesha joogtiin ina istaleefanareysiin guddi iyo gudoomiye sameysatiin gacmaha isqabsatiin dadka xamar idinka joog dadka Shabeellaha dhex joog raadisiin wax isku xir dhalinyaro waxa la yiri talo waxay ku soo hirtay timadoobe ku soo hirtay odayaalkii ayaga waraabo iska xaalada kale ku furan yihiin waxa inay istaagaan oo dadka isku afteyniyaan dadka isku keenan rabo dhalinyaradii waaye anaga ma seeraanan dila sida runtii dadka waa israaradsada laakiin anaga ma israadsano waxa idinka codsaa marka insha Allah taala baaq idinku soo dira inaad dadkiina niga maqan raadisiin meel Allah la meesha joogtiin dad yar ma tihiin 9 oday ka koobantiin 9 oday meesha ka nuuxsatay meel ciyaar ma ah baa i bakool waa dhex degantiin xaquuqa naaga maqan waxa lagu raadi karaa wada jir waxa lagu raadi karaa midnaan waxa lagu raadi karaa ina gacmaha la isqabsado marka insha Allah taala baaqaas si gaar aqoon yahanada beelweynta Kaboole xamar ha joogaano Shabeellaha Hoose ha joogaano Shabeellaha dhex ha joogaano ina wax samaysatiin dalad ku midaysantiin samaysatiin iska warhaysiin halka waxa mahad balaaran aga soo celiha ururka midaynta beelweynta Kaboole oo gudoomiye u yahay gudoomiye Bille Ahmed Sheekh meesha insha Allah taala barnaamijkan fududeey aga mahad celiha ilaaha mahad iskale ilaahay idinkiisa idinkana waxa idinku booriha ina dadaalkan dardarka ku wadin ku sii wadin dhalinyarada la isku raadiyo odayaalka la isku raadiyo facil raadiyo ra'iisul wasaare Xamza hadii warkiisa soo qaato wuxuu yiri waqtigii bini aadan loo noqolahay la jooga hadda waqtigii bini aadanka la noqolahay la jooga waxa yeelaysiin israadsada gacmaha isqabsada wardii hadii lagu kala tago oo dib kale lagu kala tago wax tolnimo laga tirsaayay iska yarbo marka insha Allah taala midooba gacmaha la isqabsado dardaarankaas meesha ka soo jeediha waxa kale jiro halkan baaq waxa aga dira dawladda federaalka Soomaaliya mudana حسن شيخ محمود رئيس الوزراء قدوميها بارلمانك لبض أقل دولة هيرشبيل وهو جاميو مدحوين على جود لابو حسين أنا حقوق بدن أنا جمقن أورن وشيء هذا نوكو عليها محايلي ما أنت هدوشلكو دع مسلبكو دع وحكول ويديه حل دوانوا وهذا رقم عد بمربط عد ويديه سو ملو meel allaal meesha tagto mas maxkamad ha noqoto mas meel kale ha noqoto damaanad iyo waxa di xildhibaankaada abaal wala xildhibaankaada keenso marka anaga matalaad ma ku leenahay baarlamaanka waa ku celceliha anaga xibina anaga maqan xibintana meesha ku maqantaa waa la wada og yahay faafaahin dheer hadaa ka bixi daraadna waa sheegay haddana waa ku celiha kilibka oo ka soo jawaabay Axmed Rashid
wuxuu yidhi imbagaati anaa kusoo dhisiyuu yidhi imbagaati nin walba ugaaskiisa ku matalayaa jira makan ugaaskeedaa jiri eylo ugaaskeedaa jira malaqshirayaa jiri honeeraa jiri meesha nin walba ugaaskiisa ku matalaa so asi kusoo qaada waa la yaabanaa ilaa hadda anagana dadaan ugu matalayo meeshaas meesha waxaana laga faa'iidaystay oo anaga siyaasadda gadaal aaga hirnay ilaaha u naxariistay boqorkeeni markii oo dhintay boqor yaambe cabdiqaadir yaambe oo dhintay markaasaa dib u dhacnay 12 sano 13 sano masraxa waa ka maqneen ilaa laga soo doorto ugaas kale uu ka yimaado arrinteena saasay faraha aga baxdayana laga faa'iidaystayaa waxayna lagu kala darsaday marka 4 kursi shabeelaha dhexe iyo hiiraan 4 kursiyaa taala sideedaba waa ku celiyaa haddana 4taas kursi jareerta degan laakiin 3 cumaraa degan kaboolaa degan waxaa degan magaciisa shiidlaa degan waxaa degan makanaa degan reer shabeelaa degan 4taas kursi 2 kursi meeshay ku baxeen waa ujeednaa makane iyo reer shabeele 2 kursi oo shabeelaha dhexe taalo majority haddii la yidhaahdo kaboola ku dhul badan meeshaas waxaa iskale kaboola iskale kursiyaas kale oo labaadoo maqan qof oo u gaar yahay male jareer weynay ka dhexaysaa 7 kursi dowladda federaalka waxaa ka codsaa arrintaas inay soo farageliso maadaama anaga matalaad haysanin cunugu u yar maanta haddaa jaamacad oo ka qalin jibiyo meel geeysata xildhibaankaada la imaa waa lagu leeyahy dhibkanahaasoo ugu weyn midkaas waa matalaad ma ku leenihi dhallinyaradayna waxay barteen aqoon-yahaniin waaye jaamacaday ka wada qalin jibiyeen aniga cid kale ina ugu kor gambanoo ku tuwaalaysano aaday noo dhibtay mudana madaxweyne dib noo soo fiira insha allahu tacaala kulley hadda waqtigii lama taagno laakiin waxaa la yidhi macsara aawadan baa loo cawaa saasaa macnaha hadalka saasaa u sheegoona hadduu alla idmo inna laga warhaayo beel jirto gaar ahoo taaganaa nahay beel weynta kaboolaana la yidhaha anaga dad aan macnaha kulamaalagnahay ma jirto oo mase qof hoos joog unahay ma jirto anaga marka insha allahu tacaala hirshabeele iyadana insha allahu tacaala mudane madaxweyne cali guudlaabe biidni illahi alkariim waxaa kaa rajeyhina adigana insha allahu tacaala maadaama nin nabadoon nin culus tihid nin degan tihid ina adigna waa kaasaa bal soo fiiris insha allahu tacaala anaga mudnaanteena waxaa sugeyni ugu yaran 3 ximin aa sugeyni ilaa 4 ximin aa sugeyni abaalgudkeena waxaa laga dhigay 1 ximinaa laga dhigay oo hirshabeelle marka insha allahu tacaala cadaaladda maalna iska imaahaysaa xaqana maalno fiiraha ka dilaaca wax maqnaa doonna ma insha allahu tacaala laakiin waxaa jeclahay madaxda inay gaar ahaan u fiiriso waxaa kaloo halkan baaq aga dira wasaaradda arrimaha gudaha iyadaa dib u heshiisiinta inay arrimahaas iyadana soo farageliso insha allahu tacaala hadda war waayo media ka hadlooya iyadoo qoraal in waa u keeni doona hadduu alla idmo arrintaas inay ka shanqariso marka insha allahu tacaala mar labaad mar saddexaad waxaa faraa dhallinyarada beelweynta kaboole meel allaala meeshay joogaan hurdada ka kaca gacmaha isqabsada community samaysta isku imaada wax waa barateen laakiin baasha meesha ay idinka jirto ma fahansantihiin adaga anaa idin fahansiyaha insha allahu tacaala ugaaskiina la soo xiriira siyaasiyiinaa leedihiin aqoon-yahaniinaa leedihiin shirkiina ha bato galgalkiina ha bato hurdada ha laga kaco waagi oo xayawaannimada xagga ha layska dhiga bini aadan ha layska dhiga markaa insha allah dadka ha lala jaan qaado dadka ha lala socdo xaaladda meeshay socota ha lala socdo dal iyo dibid meeshaa joogtay ma yar tihiin kaboolo banaanka issoo dhiga idinka haddaa banaanka issoo dhigin cid idin soo dhigaysa male 5taas degmo hadda sheegaa shabeelaha hoose waa degan tihiin laakiin idinka haddaa aamustihiin mase dad inaad diris u noqotiin mase dadku hoos noolaatiin ee idinka soo go'da dhib waa waxaa la rabaa banaanka issoo dhiga idinka shirarkiina ha bato meesha inaa wax ku leedihiin muujiya ilaahay idinkiis insha allahu tacaala anigana meelihii wax ku xiran yihiin xafiisyada insha allahu tacaala waa fududay doonaa hadduu alla idmo biidni illahi alkariim assalaamu calaykum waraxmat ullah